السلام عليكم. afhayeenka xisbiga Hindiya xukuma Bharat ya Janat ayaa wuxuu afka ku taagay oo uu aflagaadeeyay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iyo hooyadeena Aisha radiyallahu anha wa ardaaha. Xisbigaasi wuxuu afka ku taagay nabi ku nool kuna weyn qulubta 2 bilyan oo muslim ah. sidoo kale xisbigaasi wuxuu afka ku taagay oo uu aflagaadeeyay hooyadeena Aisha oo Ilaahay ku soo taahiriyay kuna soo bariyeelay fawqa 7 samaabaad. 7 samad korkooda ayaa Aisha lagu soo bariyeelay laguna soo muuqaalkan waxaynu ku rifaynaa oo aan ku dul istaagaynaa xisbigaas oo uu hogaaminayo mukhannath lagu magacaabo Narendra Modi. magaciigu waa Umar Maxamed, halkanina waa kanaalka Garwaaqsi. soo dhawaada saaxiibayaal, kuna soo dhawaada muuqaal xasaasi ah oo xamaasadiisa bata. ku soo dhawaada muuqaal ay YouTuberada Soomaaliya iska indhatireen doobidiisa marka laga reebo in yar oo doorkooda ka qaatay doobida muuqaalkaas. sidoo kale saaxiibayaal, ku soo dhawaada ka hadlida qadiyad diini ah oo sidoo kale YouTuberada Soomaaliya iska indhatireen kana aamusan qadiyadaasi diiniga ah. aniga ka Umar ahaan bil xaqiiqa markaan ka hadlo dhabta markaan ka hadlo waxaan in badan la yaabay YouTuberada Soomaaliya. YouTuberadaasi waxay iska bataan barankiyadooda buugta ah iyo muxtabaha taafiha ah ay soo gudbiyaan YouTuberadaasi. arinkuna wuxuu marayaa meel aan caadi ahayn. Ilaahay xaq hayna wada tusa dhamaanteen. Soomaalidu ka bulsho ahaan badankoodu war uma hayaan qadiyadan diiniga ah. qadiyadan waa qadiyo mudan in laga hadlo si ay bulshada dhammaan u wada ogaadaan xaalka meeshuu marayo. ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. ka hor inta aanan ku dul istaagin xisbiga Bharat ya Janat oo Hindiya xukuma, waxaan rabaa inaan si cilmiyeysan u karbaasho Hindiya. shakhsi kamid ah min ubaadil baqar, shakhsi ka tirsan qolo looda caabuda oo asal ahaan baliita madaxiisuna raaracsan yahay ayaa madaxiisa sara u soo qaaday wuxuuna afka ku taagay sayyidul bashar, basharka sayyidkooda. wuxuu afka ku taagay nabiga basharka ugu sharfan. saaxiib adigan idaabanayo ma ogtahay in dawladda Hindiya lagu tiriyo mid kamid ah dawladaha ugu dib dhacsan caalamka? ma ogtahay in dawladda Hindiya ay ka tirsan tahay min ad-duwal al-mutakhallifa fi al-aalam? طبعا Hindiya waxay ka tirsan tahay dawladaha ugu fasahaadka badan caalamka uguna musuqmaasuqsan. jaraa'imka kufsiga ugu badan caalamka waxay ka dhacaan gudaha dalka Hindiya. 18 daqiiqo waliba gudaha dalka Hindiya waxa ka dhaca kufsi. tirada gabdhaha lagu kufsaday Hindiya waxay gaartay 20,000 gabar Hindiyaan ah. dhinaca kale gaajo iyo faqiirtinimo awgeed gabdho iyo caruur yaryar oo Hindiyaan ah waxay nool yihiin iyagoo qaaban oo dhar la'aan ah. xitaa waliba caruurtaasi waxay ku dhex soconayaan wadada iyagoo qaaban oo dhar la'aan ah faqiirtinimo awgeed. انا شفت بعيني، انا رحت الهند نعم من زمان طبعا فترة طويلة، وشفت كيف البنات عراية، والله بنات اطفال 7 سنين 8 سنين عراية. fariin ku socod hogaamiyaha xisbigaas Narendra Modi, adigoo ummadda aad hogaamisid oo xaalkeedu yahay sidaan aan soo sheegnay oo qaarkood ay caabudaan lo, qaarkoodna caabudaan daanyeer. adigoo sidaas u takhallufsan u dib dhacsan, miyay macquul tahay inaad afka ku taagtid nabi uu Ilaahay soo diray oo caalamka ka saaray mugdiga una saaray iftiinka? miyay macquul tahay inaad afka ku taagtid nabi sabab u ahaa inay dadka hanuunaan oo ibaadada iyo baatilkuba ka baxaan? jawaabtaasi oo cad waa maya macquul ma ahan. haddii aan u soo laabano guurka uu Nabi Muhammad guursaday Aisha iyadoo da'deedu ahayd 9 sano, arintan lama ceebeen karo waayo waxaa jira wax ay dadku isku afgarteen xili hore oo ah gabadhu marka ay da'da 9 iyo wixii ka sareeyay ay gaarto waa loo guurin jiray. xiligaas aan ka hadlayno dadku waxay ogaayeen in gabadhu loo abuuray kaliya in hal nin uu guursado oo aynan noqon sida gabdhaha gaalada ah oo xaalkoodu yahay ninkii aragtaba ninkeeda. xiligaas aan ka hadlayno dadku waxay ogaayeen in gabadha loo abuuray inay noqoto hooyo iyo inay noqoto murabbiyad, يعني تربية سجوري إني نقطة معلمة أبنائها معلمة المهد إني نقطة أو أي علمها سأصول لستو لن دين يقدم في كربا. لكن إنك الزمن كان أن جوجنو قبلها وحلقة ساري في طردي يأبورك سليم كأها وإلهي وكو أبوري وحلو ساري والله رب قبلها وقابنان أخلاق كبح يدي حل مذا. عائشة رضي الله عنها وحيتري إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة.
xadgudubka koowaad wuxuu ka imaaday afhayeenada rasmiga ah ee xisbiga Bharatiya ya Janat oo magaceedu yahay Nabar Sharma oo ka qayb gashay doodwada ka dhacaysay TV-ga waxayna hadal ka dhahday guurkii Nabi Muhammad uu guursaday Aisha iyadoo 9 sano jir ah hadalada ay dhahday afhayeenadaasi waxa si toos ah loogu sifeeyay in hadaladaas ay yihiin hadal gaf iyo xadgudub ku ah Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam iyo xaaskiisaba xadgudubka labaadna wuxuu ka imaaday afhayeen kale oo ka tirsan xisbigan magaciisu yahay Nadil Kumar Jandal shakhsigan bartiisa Twitter-ka ayaa wuxuu soo dhigay qoraal oo isagana hadal kaga dhahayo guurkii Nabi Muhammad uu guursaday Aisha iyadoo 9 sano jir ah wuxuuna uga hadlay qaab ama si aflagaada ku ah Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam iyo xaaskiisaba aanu imaano nuqtada ah kadib xadgudubka maxaa dhacay muslimiinta maxay ku falceliyeen waxa dhacay wax aan la filaynin waxa dhacay wax ka farxiyay dhammaan ummada muslimiinta aan ku bilowno doorka dawladda Qatar ay ka ciyaartay difaaca Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar ayaa waxay u yeertay safiirka Hindiya waxayna u gudbisay warqad rasmi ah oo ku saabsan diidmada Qatar iyo cambaareynta buuxda ay cambaareynayso hadaladii mas'uul ka tirsan xisbiga talada haya ay ku weerareen Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wasaaradda Qatar warqadda waxay ku sii ishaartay in 2 bilyan oo muslim ah oo daafaha dunida ku kala nool ay raacayaan wadadii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam iyo siiradiisa wasaaradda Qatar dawladda Hindiya waxay ku xujeysay inay raaligelin degdeg ah ka bixiyaan hadalada ay ku hadleen shakhsiyaadkaas ka tirsan xisbiga talada haya ee Hindiya sidoo kale dawladaha ka falceliyay waxa kamid ah dawladda Kuwait oo iyadana u yeertay safiirka Hindiya u fadhiyay Kuwait waxayna u dhiibtay warqad ay ku diidan tahay hadaladan ka soo baxay mas'uuliyiin ka tirsan xisbigan talada haya ee Hindiya dawladaha ka falceliyay sidoo kale waxa kamid aha dawladda Sacuudi oo iyadana cadeysay inay diidan tahay ayna inkirsan tahay hadaladan aflagaadada ah oo ka soo fulay shakhsiyaadkan ka tirsan xisbiga talada haya ee Hindiya wasaaradda arrimaha dibadda Sacuudi ayaa sidoo kale soo dhaweysay oo amaantay talaabadan ay xisbigan shaqada kaga joojiyeen shakhsiyaadkii ku xadgudbay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam arinta halkan kuma ekaanin dhinaca baraha bulshada waxa ka bilowday weerar lagu goynayo muntijaadka ay soo saareen Hindiya sida goobo ay shirkada wax ku iibin jireen iyo goobo kale waliba muntijaadkaasi waxa lagu duldajiyay warqado lagu cadeynayo in la joojiyay iibinta ashyaadaasi laga soo saaray dalka Hindiya baraha bulshada waxa sidoo kale ka jiray hashtag lagu difaacay Nabi Muhammad oo ah illa rasuulullah ya mudi oo hogaamiyaha xisbigan wajiga kab looga saaray lana marsiiyay wadadii la marsiiyay Emmanuel Macron sidoo kale daabade waxa meesha ka marneen banaan baxyo iyo mudaharaadyo ballaaran oo ka dhacay gudaha iyo dibadda dalka Hindiya malaayiin bulsho oo isugu jira Arab iyo Muslim ayaa u banaan baxay difaaca Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam si gaar ah aanu xusno dalka Pakistan oo isagana banaan bax xajmigiisu sare ku dhaqaaqay oo uu kaga yaabsaday xisbigan mutaqallifka ah bulshooyinka banaan baxa sameeyay xisbigan waxay ku xujeeyeen in ay i'tidaar ka bixiyaan in ay xisbigan raaligelin buuxda ka bixiyaan gafkan ay u gafeen Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam اعتصامات مسيرات احتجاجية مظاهرات الكثير من التنديد هنا في باكستان بسبب الإساءة التي واجهها 2 من قادة حزب بهارتيا جناتا الحاكم في الهند لنبي الإسلام الرسول محمد عليه الصلاة والسلام الكل تقريبا يطالب باعتذار الحكومة الهندية عن تلك الإساءة وأيضا بمعاقبة القياديين xisbiga Bharatiya ya Janat oo uu hogaaminayo Narendra Modi cadaadiskan uu la kulmay dartiis ayaa wuxuu jeediyay bayaan uu ku sheegay in uusan aqbalaynin in lagu xadgudbo muctaqadaadka iyo diimaha sidoo kale hogaamiyaha xisbiga Narendra Modi wuxuu ku dhawaaqay shaqo joojin lagu sameeyay labada qof ee ku xadgudubtay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam iyo xaaskiisa Aisha radhiyallahu anha halkan ayaan ku joojinaynaa karbaashka aan dusha kaga tuurnay oo aan dusha kaga dhufanay xisbigan Bharatiya ya Janat saaxiib walaalka iyo walaashay muuqaalkan ka baran xisbigan halka uu mudnaa ma marsiinay ma karbaashina mise jawaabta commentiga inoogu reeb muuqaalkan waxa idin soo diyaariyay juhdi adagna idin soo geliyay anigoo ah Umar Maxamed waxaana idin soo marsiiyay kanaalka Garwaaqsi soo dhawaada saaxiibayaal kuna soo dhawaada kanaalkiina Garwaaqsi kanaalku waa kanaalkiina soo dhawaada wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh